mahad cabdalle cawad iyo qaalid macow cabdiqaadir ayaa maanta loo doortay inay ka mid noqdaan mudanayaasha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. doorashadan ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho halkaas oo lagu dooranayo xubnaha matalaya gobolada waqooyi ee Soomaaliya iyo sidoo kale gobolka Banaadir. warbixin muurta ku saabsan waxaa noo haysa wariyahayaga magaalada Muqdisho naga soo waranta Seenib Maxamed Aadan. doorashada xildhibaannimo ee ka bilaabatay magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu bilaabay kuraasta aqalka hoose iyadoona kursiga ugu horeeyay ee ku tartameen musharaxiinta kala ah Mahad Cabdalle Cawad, Xasan Maxamed Nuur iyo Maxamed Axmed. markii ay doorashada bilaabatay ayaa waxaa tanaasulay Maxamed Axmed iyadoona ay isku soo hareen Mahad Cabdalle Cawad iyo Xasan Maxamed Nuur, waxaana 50 cod markii dambe keensaday Mahad Cabdalle Cawad sida uu warbaahinta kaga warbixinayo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan Cumar Dhagay. musharaxiinta kala ah Mahad Cabdalle Cawad iyo Xasan Maxamed Nuur waxa ay ku kala codadka ay kala heleen kala yihiin musharax Mahad Cabdalle Cawad oo ku guuleystay 50 cod, halka musharax Xasan Maxamed Nuur oo helay 1 cod. sidaas darteed natiijadii maanta doorashada waxaa ku guuleystay oo hordhac ah musharax Mahad Cabdalle Cawad. dhinaca kale waxaa kursiga labaad ku tartamay musharaxiinta kala ah Qaalid Macow Cabdiqaadir iyo Shariif Maxamed iyadoona uu 29 cod ku guuleystay Qaalid Macow Cabdiqaadir, waxaana natiijada warbaahinta la wadaagay Aways oo ah xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka. waxaa maanta aan qabanay siidka lambarkiisu yahay ba 5 eber 271 BN. waxaana ku tartamaya Shariif Maxamed Sayidi oo helay cod 21 ah iyo Qaalid Macow Cabdiqaadir oo helay cod 29 ah. ugu dambeyntii xildhibaan Mahad Cabdalle Cawad iyo xildhibaan Qaalid Macow Cabdiqaadir oo ah xubnihii ugu horeeyay ee maanta ka soo baxa xildhibaanada laga soo dooranaya magaalada Muqdisho ayaa dareenkooda la wadaagay shacabka. Waraxiim waxa sharaf ii ah kursiga deegaan doorashada aan ka soo jeedo oo kalsooni ballaaran ay ergada sharafta leh ay igu siiyeen. waa uga mahadcelinayaa, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa walaalahay oo waxa weeye ambassadorka oo aan mar labaad u mahadcelinayo sida uu igu tanaasulay, iyo walaalkay Xasan Maxamed Nuur oo ila tartamay. waa u mahadcelinayaa. dareenkayga waxaan dareemaa kaliya inaan mas'uuliyad culus qaaday maartay oo runtii aad iyo aad u culus, maxaa yeelay aniga xildhibaan waxay iga taagan tahay mas'uuliyad weyn oo qarameed maartay, mas'uuliyad weyn oo umadeed u baahan qofkiisa inuu yeesho dulqaad, inuu yeesho adkaysi, inuu yeesho maxaan ku dareen wadaninimo maartay, inuu yeesho intaasaan dareemaa maartay. intaasna aad bay u culus tahay maartay runtii. doorashada xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare ee dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay maalmihii ugu dambeeyay ka socdeen gobolada dalka Soomaaliya iyadoona markii ugu horeysay ay maanta ka bilowdeen magaalada Muqdisho. Seenib Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.